بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها أقل كسرة مدن عبد حاشي قدوميها كدي يقولات كافك الصومالي جاء مسؤول كقولها وأنا ده كسعودة دمان دليرة كسعودة نادي آخر سكاب وهو ريان نادي آخر سكاب قرالك هالحيان نادي آخر سياش حمر يصيروا كل نادي آخر سكاب قرالك بنادر قولها قرياش الصوماليين مسكحشين حرم تايفية sidoo kale waxaan iyagana salaamayaa dhalinyarta ka socota naadiga akhriska iyo qoraalka galgaduud oo runtii iyaguna maanta inagula sugan munaasabada dhammaantood ka soo qaybgalayaasha macallimiintii tababarada sidoo kale bixisay iyagana aad baan wada salaamaya bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib waxaan runtii hambalyo u dirayaa dhalinyarta ku dhow 200 ee maanta runtii ka qaadanaysa halka shahaadada oo ay akademiyada goboleedka afka soomaaliga ay u soo xirayso maanta tababarada runtii shahaadooyinna maanta goobtan ka qaadanaya iyagana runtii waxaan u dirayaa hambali waxaan leeyahay hambali intaa kadib runtii talada lagu toosinayo horta marka ugu horeysa wax ka qiimo badan ma jiro in laga qayb geliyo oo lagu yiraahdo kaalay baahiyaada noo sheeg waxaan xasuustaa taariikhda markii ugu horeysay ee aan akademiyada la soo xiriirinay waxaan la soo xiriirinay akademiya walaashay Saynab oo xogaayno markaasaan u soo bandhignay runtii baahideeda isla markiiba runtii si niyad samiya oo aan runtii shuruud ku xidhnayn ayay noo soo dhaweeyeen kadibna waxaan u soo bandhignay baahiyahayagii waxaan aaminsanahay waqtigaas oo ahaa sanadkii 2017 inay degdeg uga jawaabeen baahidayadii maanta sanadka 2018 waxaan runtii wada lahayn shaqayntii ugu qiimaha badnayd ee aan runtii la yeelanay institution saaweyn akademiyada waxyaabaha kale runtii intaan u soo noqon tababarka aan soo noqdo waxyaabaha kale xusid dambe waxa weeye barnaamijyadeena inta badan gaarka ah ayaan qabanayno inay rol muhiim ku leedahay markasta oo aanay gacmaha naga laaban oo ay tahay garabkayga taasaan horta runtii muhiim ah inaan dib u laabto waxa sidoo kale muhiim ahayd oo runtii lama ilaawaan in maanta dhalinyarada halkan ku sugan iyadoo hal shilin laga qaadin in lagu yiraahdo baahidiina noo sheegay kadib si degdeg looga jawaabo maanta aad arkaysaan oo ay u fadhiyaan baahidoodii iyadoo looga jawaabay maanta ay u fadhiyaan runtii taas waxay runtii aan cid kale aanan aaminsanayn inay hore uga heleen dhalinyartu maanta aanan aaminsanayn inay keenayaan waxaan sidoo kale hubaa oo aan boqolkiiba boqol hubaa in akademiyada ay si xaqiiqa ugu taagan tahay nooleynta afka hooyo taana waxa marka ah waxyaabaha arkaysaana la taaban kara ee maanta idin muuqda waana runtii ku bogaadinaya waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay runtii dhalinyartu way qabaan baahidaasi aadka ah hore maanta waxa ka qabatay wax runtii aad iyo aad muhiim ah inta maanta taagan waxaan aaminsanahay inaan soo gudbin doono sida awalkii horeba talada loo dhagelineysay kadibna aan soo bandhigi doono waan aaminsanahay inaad ka jawaabi doontaan haddii alla yiraahdo waxa xusid mudan gudoomiyaha akademiyada oo muddadii tababarku socday dhalinyarada qaybihii dufcadii kala baxay dhammaantood dhex taagnaa oo runtii kamid ahaa macallimiintii bixinaysay runtii taasna waxay noo ahayd sharaf iyo xusuus lama ilaawaan oo aan weligii qalbigayga ka baxayn geel baa la dhahaa wiskeeda baraha runtii maanta waa geeda barteen wadada noo tilmaamteen na barteen waxaan aaminsanahay inaan ku taagnaan doono siduu abwaan cabdulaahi sheegay xirsadooh waxaan noo tihiin macallimiinteena macalinka wanaagsan muhiim waxaa mar walba in lagu dabadaydo waxaan aaminsanahay dhalinyarada maanta halkan taagan in adinku macallimiin tihiin wadadaad marteen ay mari doonaan taasaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay dhammaantiin howlwadeennada akademiyada aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa quruxda badan ee uu nala wadaagayay gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka ee banaadir qadar cabdi cabdilaahi soo jeedintiisa quruxda